hay-adaha Ansar International iyo Somalis Community oo fadhigoodu yahay dalka Jarmalka ayaa deeq isugu jiray dhar qalab waxbarasho iyo hilib soo gaarsiiyay arday agooman ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar ee wax ka barta iskuulka Anwar Muslim United School. Carruurta agoomaha ah ee lacagta la siiyay ayaa waxa lacagta u soo dhiibay dad Soomaaliyeed oo ku nool qaar ka mid ah wadamada Yurub. Dr. Xasan Xuseen Roble oo ah maamulaha iskuulka Anwar Muslim United School ayaa ka mahadceliyay deeqdan la soo gaarsiiyay carruurta agoomada ah. maanta waxaan farxad weyn noo ah waxaan nala jooga maanta Somalis Community walaalaheena oo nooga yimid Jarmalka oo noo wada hadiyooyin tiro badan oo noocyo badan ah xaqiiqo iyo waxyaabo badan oo isku jira ayadoo ay tahay munaasabadii nisfu sanaha sanadkan sanad dugsiyeedka 2014 2015 marka waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalaheena nooga yimid islaamka nooga yimid Jarmalka oo noo sida maartay hadiyadahaas waxaan leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh soo dhawaadaan leenahay marhaban bikum. Xaawo Maxamed Cusmaan oo madax ka ah hay'adda Somalis Community ayaa ardayda guddoonsiisay deeqaha kala duwan iyadoo sidoo kale u mahadcelisay dadka iska soo aruuriyay deeqahan. sheegaya walaalaheena muslimiinta ah qof walba waxa ka mas'uul ah hal qof oo Jarmalka jooga ama Austria jooga ama jooga Switzerland walaalaheena Yurub ku nool marka waxay siiyaan carruurta bil walba ay ka bixiyaan fiiga macallimiinta iyo waxay kala ka bixiyaan nolosha maalmeedkooda inta ma kaafinayso laakiin waxa isku dayaynaa carruurta yararka ah ee aan awood u lahayn waalidiintooda inay bixiyaan iskuulka lacag baa lagu dhigtaa waagi hore lacag la'aan bay ahayd waagan aniga yara ee Soomaaliya joogay laakiin hadda meel walba waxa waa lacag marka walaalaheena aan nasiibka u helay in ay iskuulkan dhigtaan waa walaalaheena yararka muddo 3 sanadood ayaan hawshan wadnaa unsere Geschwister in ganze Welt besonders Deutschland Österreich und Schweiz. Vielen Dank für eure Hilfe. Kommt an, wie ihr seht, Ansar International hat ein Motto genommen, seht euch, wie ihr an eure Hilfe ankommt. Jazakumullahu khairan. Jeder Mensch, der unsere Kinder der Geschwisterlichkeit zeigt, möge Allah reichlich belohnen und möge Allah Jannah Firdausa geben. Wir machen für euch Dua und wir vergessen euch nicht, was unsere Kinder habt ihr gegeben. Jazakumullahu khairan wa rahmatullahi wa barakatuh. Alle Kinder, die hier sitzen, sie begrüßen euch ganz herzlich und sagen euch Assalamu alaikum wa rahmatullah. Hay'adaha Ansar International iyo Somalis Community ayaa inta badan taageera dadka danta yar iyo carruurta agoomada ah iyagoo ka caawiya dhinacyada waxbarashada, caafimaadka iyo nolosha. Aways Mahmoud Dilcow, Royal TV, Muqdisho.